ku fikirtaan wax ka bedesho xaalka Soomaaliya, ma ku fikirtaan wax ka bedesho xaalka wadamada muslimiinta, sidoo kale ma ku fikirtaan wax ka bedesho xaalka guud ahaan dunida oo dhan? haddii jawaabtoodu haatan waxaan rajeynayaa daawata muuqaalkan wax badan iska kaa bedeli doonaan. kusoo dhawaada muuqaalkan. waxaa jirta qaacida oranaysa bedel naftaada intaadan bedelin dunida. wax badan waxaa laga yaabaa inaad ku fikirto inaad bedesho dunida, balse ma bedeli kartid dunida adoon bedelin naftaada, habdhaqankaaga, caadooyinkaaga. awalan ka adkaaw naftaada. waxaa kaloo jira xikmad oranaysa qof kasta waxa uu ku fakaraya inuu bedelo dunida, balse ma jiro ruux ku fakaraya inuu bedelo naftiisa. aan soo yara qaadana qiso yar oo ku saabsan arrintaa. boqor ka mid a boqoradii hore ayaa hadda kahor waxa uu xubnihiisa la shaqaynaya ilaaladiisa ku wargeliyay inuu u baxayo safar dhulka uu ku marayo gobolada uu ka taliyo si uu usoo arko hab nololeedka dadkiisa. muddo markuu ku maqnaa ayuu soo laabtay isagoo cagiisa dhiigayaan qodxaya quraara badan ay soo mudeen. kadib waxa uu yeeray wasiirkiisa u qaabilsan dhanka wadooyinka, waxuuna ku yidhi haddiiba shacabkaygu saan ku nool yihiin nolol ma jirtee waxaa samaysaa wadooyin hana lagu gogla harag lo-aad. waagaas ma jirin laamiga, balse wasiirkii ayaa boqorkiisii siiyey talo muhiima isagoo ku yiri mudana taas qarash badan ayaa ku baxaya, mana aha howl sahlan. lo badana way ku baaba'aysaa, balse samayso kaba ka samaysan harag lo-aad kaana difaaca qodaxda iyo dhagxaanta ku dilaysa. dadkuna sidaas ayay samayn doonaan. boqorkii taladii cajiibkayd ayuu qaatay, dadkiina kabihi ayay ka daba samaysteen. qiso kale aan soo yara qaadana waa qisadii dhex martay asxaabta iyo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee heshiiskii Xudaybiya. halkan kuma soo koobi karno arrintii ka dhacday Xudaybiya iyo heshiiskii, balse waxaan doonaynaa inaan ka soo qaadano qiso yar oo ku jirta heshiiskii Xudaybiya, taas oo dhex martay nebiga iyo asxaabtiisa. sidaan qisada ku hayno markuu dhammaaday heshiiskii Xudaybiya ayaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee amray in hadiga la gowraco, balse cid dhagja looguma siin. mar kale ayuu ku celiyay cid dhagja looguma siin. mar saddexaad ayuu ku celiyay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee cid dhagja looguma siin. nebiga ayaa u tagay saxaabiyadii Salama kana mid ah ummahatul mu'miniin isagoo nebiga ku yiri maanta asxaabteeda waxaan ka baqaynaa ciqaabo kusoo degto. isagoo nebiga uga sheekeeyay arrintii, Salama ayaa nebiga ku tiri adigu u bilow gowraca hadiga una yeero mid kuu xiira, kadib waa ay ka daba samayn doonaan. sidii ayuu nebigu yeelay, asxaabtiina ayaa sidii ka daba samaysay. asxaabta qaar ayaa leh madaxa ayaan iska jari gaarnay markaan timaha xiiranaynay caro dartii. asxaabta ayaa dhalisanaa qaar ka mid a qodobadii heshiiskii. haddaba si aad u bedesho noloshaada waa inaad bedeshaa naftaada. si aad u bedeshaa naftaadana waa inaad bedeshaa hab fikirka maskaxdaada. si aad u bedesho naftaada bedel wixii aadan jecleen, ka tag wixii aadan awoodin, bedel habdhaqankaaga. horumar iyo baraaraha sugan isbedel la-aan. waa qaybtii labaad barnaamijkeena maxaan ka baran karnaa. haddaba labadan qiso maanta waxaanu ka baran karnaa in naftaadoo bedesho ay noqonayso inaad bedesho dunida, balse adoon bedelin naftaada inaadan bedeli karin dunida. sidoo kale waxaan ka qaadan karnaa qofka haddii uu madax yahay in laga doonayo in uu wax walba si tadbiiqiyana practica u sameeyo si dadku uga daydaan. oo hadal kaliya dad wax kuma qaataan, laakiin adigu u bilow wax walba. waxa aad sheegaydana adiga ha lagaa dhex arko. markii bulshadu kaa dhex aragto waxaad adigu ku hadlaydo ayay bulshaduna samayn doonaan. intaas ayaan maanta barnaamijkeena ku joojin doonaa.